kacdoonkii beesha jareerweyne oo looga soo horjeeday gafkii dowladda dhexe ay kula dhaqantay generaal sheegow kuma uusan ekaan gudaha wadanka Soomaaliya. haddaad horay u aragteen iyagoo ka mudaaharaadaya Beledweyne, Garowe, Muqdisho, maanta waxaan idin wadaa waxay ka hor mudaaharaadeen weliba kiiska iyo gafka generaal sheegow loo geystay loo gudbiyay wadamadii Afrika oo idil. shirka maalinta labaad beejkayga Facebook Cabdilaahi Balwaan uu warbaahinhaan uga qayb galayo ayaa lagu hor bandhigay fadeexada dowladda dhexe jareerweyne ciyaar ma aha. albaabka hore ee shirka waxa la taagan yahay boor lagu soo xardhay gafka cunsuriyada dowladda dhexe ee jareerweyne u geysatay. sidoo kale sawirka Xasan Sheekh Maxamuud oo istilaab gaduud ah la saaray ayaa la hor taagan yahay. ila arka our country for the sake of our children and our beautiful country. Viva Italia, viva! Viva General Shogo, viva! Free General Shogo, free! Free and lawful arrest, free! The spear has fallen. Pick it up, please. Please, the spear has fallen. Pick it up. jareer ciyaar ma aha. 54 dowladood oo Afrikaan ah ayaa shirka maalinta labaad ku sugan. wadamada Russia, Brazil, India, China ayaana shirkaasi qaban qaabiso oo xaadir ah. dhammaan mas'uuliyiinta Afrikaanka ayaa kuwa ka kala socda dalalka aan idin sheegay waxa loo gudbiyay cunsuriyada jareerweyne lagula dhaqmay gudaha magaalada Muqdisho. wadna ogtihiin maalintii labaad warbaahinta beejka Cabdilaahi Balwaan oo ah beejka aad hadda iga daawanayso waxa uu ka mid yahay warbaahinadii lagu casuumay. haddaba waxa ii suurta gashay boorarkaas qayla dhaanta jareerweyne inaan muuqaalkan qodobka koowaad ee barnaamijka aan kuugu soo gudbiyo. fadlan u hiili jareerweyne muuqaalku markuu ku soo gaaro share gare like saar waa hiilada maanta uu jareerweyne ka sugayo oo kaliya. muuqaalka la share gareeyo videogana like la saaro. qodobka labaad ee barnaamijka jaaliyada jareerweyne ee South Africa hoggaanka jaaliyada Sultan Ibrahim Qaxwo ayaa la hadlay beejkayga Facebook Cabdilaahi Balwaan isagoo waliba mudaaharaadka qayb ka ah sultaanka jareerweyne ee South Africa. muxuu yiri dowladda Soomaaliyeed abo dowladda Xasan Sheekh dambi jidid waxa uu sheegay in ay dadka ay naga haystaan jarnaalka iyo sheegow iyo dadka ay gumaada haday ka daan waayaan anagu ma istaageen mana istaagi doono waana ka dhiidhanayna insha Allah. jareerweyne waa kacay meeshii ugu adkayd ayayna maraysaa. qodobka labaad ee barnaamijka waxaan kugu soo gudbi doonaa go'aanka jaaliyada jareerweyne ee South Africa oo ka tilaabo dheereeya jaaliyadaha kale. horay looma arag jaaliyada South Africa tilaabta ay qaaday ee jareerweyne jaaliyada kale oo Yurub ama Mareykan jooga oo tilaab noocan qaada. barnaamijka qodobka labaad ayaan arrintaasi kugu soo gudbi doonaa. maanta barnaamijku waa jareerweyne. muuqaalku markuu soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad u hiiliso jareerweyne oo videoga like sarto siina share gareysa hadduu Allah idmo. soo dhawaada warbaahinta beejka Cabdilaahi Balwaan maalintii labaad wuxuu ka qayb galayaa shir heer caalami ah oo looga hadlayo arrimaha ganacsiga iyo amniga qaaradda Afrika. waad ogtihiin intiina badanna waad la socoteen shirka siduu shalay ku furmay. maanta waa maalintii labaad 23 bisha maalinta saddexaadna berrito ayay noqon doontaa. warbaahintaydu waa xaadir waxayna qayb ka tahay warbaahinadii halkaasi lagu casuumay. haddaba maanta way ka duwan tahay shalay. jaaliyada jareerweyne ee South Africa subhanaka ya cadiim Xasan Sheekhow yaa ku yiri jareer baa faraha la galaa. albaabka hore ee shirka 54 dowladood oo Afrikaan ah jaaliyadu waxay la hor istaageen gafka iyo cunsuriyada Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa jareerweyne ay kula dhaqantay. halka madaxdiisa ka soo qayb galay way diiwaan geliyeen dacwadu heer caalami ay noqotay. waliba inta kaliya kuma ekee dalalka markii loo sharaxay ilaa jaaliyadu waxay ku hadlayeen luqadda Englishka oo ah luqad caalami ah oo la isla fahmayo. hoos baa laga diiwaan geliyay bili aadanima ka baxa loogu geystay gudaha wadanka Soomaaliya. xariga sheegow in la daba taagan yahay siyaasiyiinta wax ku oolka ah ee jaaliyada ay cadeeyeen oo jareerweyne ah oo siyaasiga sidoo ka mid yahay. sawirka sidoo sawirka generaal sheegow intaba albaabka hore ee shirka ayaa la hor istaagay.
bal marka hore ila daawada wacdarada ay jareerweyne ka dhigeen shirkii caalamiga ahaa ee ka socday magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Our country, for the sake of our children and our beautiful country. Viva Somalia, viva! Viva Generation Viva! Please Generation free! Brave and lawful arrest free! The spear has fallen. Pick it up, please. Please, the spear has fallen. Pick it up. 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 يا كوير حسن شيخ وجريروين أفرح لا قلا waddamadii Afrika oo idil markii boorarkaasi iyo waliba astaantii ila warbaahinta beejkan Cabdullaahi Bilwaan warbaahinadii halkaas lagu casuumo kamid ahaayeen durbadiiba waddamadii oo idil waxay arkeen dacwadda heerkaas ah in dawladii dhexe ee muddo ka yar 2 sano ka dhisan Muqdisho dhibaatadaasi ay u geysanayaan jareerweyne arrintu intaa kaliya kuma ekaan way sii kululaa doontaa kiiskana dawladda dhexe meel walba ayuu u yaalaa markaynu luqadda Ingiriiska ka soo tagno jaaliyadda maadaama warbaahintan ay ku hadasho afka Soomaaliga waxaan ka codsaday suldaanka jaaliyadda jareerweyne ee South Africa Sultan Ibrahim Qaxwo bal in shacabka Soomaaliyeed ee ku hadla luqadda afka Soomaaliga ah inuu la hadlo fakirka iyo go'aanka jaaliyadana uu cadeeyo wuxuu yiri anagu ma istaageen mana istaagi doono وانا كديدين ان شاء الله حمر واقلقلين يصدي لا يركضوا waxaan meeshan firno u gudbina odayaasha dhaqanka siyaasiyiin anaga milki siyaasiyiin qaarkood kamid ah waa siyaasiyiin cadaqaatiyaal ah siyaasiyiintaas barkooda aan ka baxno ummadda dhaqankooda u shaqeyn anaga dadkeena waxaan u waayeen anaga dadkeena dhibtood arkeen anaga dadkeena problem u anaga arkeen siyaasiyiinta mushaarkooda jirsana man ka yeeli doono mana dadkeena la dhimaad ma yeelin anaga waxa maanta laga bilaabo dhaqankeena waxa u bedelnay ciidan shaalkeena waxa u bedelnay tuute koonfideena waxa u bedelnay tuute bakoordeena waxa u bedelnay saaf iyo qori maanta ka dambeeyo annaga waxaan nahay dad soo taagan dad soo fadhiya haddaan nahay oday dhaqan dhan dhammaan meel alkamita meel kasoo joogaan waa in arrintan waa in laga dhiidhiyaa dulmiga lagu hayo laga soo daaya xabsiga garaasho walleeyahay waxaan u sheegaynaa dowladda xasan sheekh damjadiid aan uma garanay waxaa la yidhahdaa dambi jadiid aa la yidhahdaa dambi jadiid وانا كرا لا ارجع عودك حبيب اي مجد سلطان ابراهيم قحو وهوغانك جاليده جريروينه ee South Africa waliba wuxuu keenay kaalin muhiim ah in lagu hor eebeeyo cunsuriyada dawladda dhexe wadamo Afrikaana oo runtii bari aynan ka aqbalayn dawladda dhexe dimuqraadiyad baynu nahay ummadan u dhaxayna wax alla iyo wixii Muqdisho ka dhacay oo documentary ah waa loo qaybiyay hogaankii ama siyaasiyiintii ka soo qayb galay shirka maalinta labaad waliba ka socda magaalada Johannesburg ee dalka South Africa anigu markastaba waxaan garab taaganahay qofka laga gardarayay waxaan ahay nin garab taagan jareerweyne munaafiq ma ahi hadalkayga lama gabado tani waa tusaale cad oo bilow ah baritu waa 24 bisha aynu ku jirno 2023 waa maalinta ugu dambaysa ee shirka caalamiga ah oo ay qaaradda Afrika oo idil mas'uuliyiintooda ay ku wada sugan yihiin ka socda magaalada Johannesburg oo ay qaban qaabiyeen wadamada Brazil, Russia, China, India iyo wadanka martida loo yahay ee South Africa in warbaahinteedu ay qayb ka ahaato warbaahinada ka soo qayb galay shirka waxaan ku mutaystay shacabka Soomaaliyeed awood anigu wasaaradda warfaafin ee dawladda dhexe ma matalayo mana matali doono waxaan ahay wariyo ummadda Soomaaliyeed u shaqeeya idna kobaqaad uma ahi qofka dhiban ayaa la jira fadlan muuqaalkan markuu ku soo gaaro heelada jareerweyne ka sugayay meel fog gaarsiin meel fog jareerweyne meel fog la gaarsiiyo jaaliyadda South Africa baritan way noo sii dhiman tahayo ceebtu inta kaliya kuma ekaa doonto intan anigu shirkaasi joogana wax badan oo idinka yaabiya wax badan oo jareerweyne ku garab istaagi doono ayaan ku sii dhameystiri doonaa inta shirka joogeen kulay maanta iyo bari kuma ekaan doonaan waxa kale oo jiri doona shirar kale oo aan u bandhigi doono dadka arrimaha dawladda Soomaaliya laga iibiyo si aan u tusno cunsuriyada dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhaqmayso waayahay
intaa kaliya xaajada kuma eka beriya noo sii dhiman iyadoo taasi ay jirto ayaan dhanka kale waxaan leeyahay jaaliyadda South Africa way muujiyeen jareernimo maxaa ku dhacay jaaliyadii qaaradda Yurub war aaway jaaliyadda ugu tirada badan ee jareerweyne Mareykanka ku sugan yihiin maxaa idinku dhacay meeyay Xasan Sheekh Maxamuud September ayuu Mareykan u soo socdaa waxaan idinka rabaa in jaaliyadda Mareykanka ku dhaqan ee jareerweyne casharka ay jaaliyadda South Africa ku soo bandhigeen shirkaasi inuu jooga fiicnaan lahayn asaga iyo waa dhintay waa baxsaday labadaba haday imaan lahaayeen maanta way ka sii kululaa badnaa lahayd xaaladda maanta shirka iyo jareerweyne waxaan ula jeedaa Xamzana waa dhuntay waa baxsaday lama hayo shirka kama soo qayb galin Xasan Sheekh Maxamuudna shirka kama soo qayb galin marka meeshaas waxa ka cad haduu labada mid kamida ay joogi lahaayeen fadeexadu inta way ka sii darnaa lahayd marka waxaan leeyahay jaaliyadda Mareykanka ee jaaliyadda jareerweyne waxaan leeyahay istaaga kuwa qaaradda Yurubna waxaan leeyahay istaaga aniga meel alla iyo meel walbo joogo muhiim ayaad xaqiiqa ka tihiin waana idin la jira mooyaane cod dheeraan waxaan idin leeyahay ha guuleystaan jareerweyne anigu waxaan ahay nin mar walba la garab taagan qof walba oo dhibban dhibkiisana la qaybsada sidaa darteed jareerweyne ha guuleysto isha ku hay wacdarada jareerweyne ee shirka South Africa ka socda maalinta in dhimanna waa berito wixii dhici doona indhihina idinku tusaya inta barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono nabadgelyo